السلام عليكم كلنتي wanaagsan markale iyo cooking with xabs Ramadan Kareem meel kasta aad naga daawanaysaan insha Allah bishaan waxa idin diyaariyay waxyaabo badan waxa isku dayayaa inaan soo geliyo weekiiba laba video hadii Ilaahay yiraahdo idinkana waxa ku dadaashaan inaad share gareysaan cajadaha walaalaha kale si uga faa'iideystaan maanta waxa idin hayaa oo maaragtay aan ku bilaabaneynaa bisha barakeysan bariis iyo hilib si fudud loo kariyay sacfaraan lagu sameeyay goorma idinku dambeysay bariis sacfaraan lagu kariyay aad u fudud iskaabulada ay karin karaan qof kasta uu karin karo ما شاء الله مركا داوشة ونكسر عجلتنا شركرية رمضان كريم ملكستو أشوفتان هاي قرابة سور دوادا ما أنتو حان سمينا إنا بريسي هلب أد أفضل مركا هلب كسحان كسيونا كاقو سقوبين ألوميان فويل كاسكوفي ذي مد كالتو وين نجرأ سيا وغضو دوبنا هلب كأوهورنو ما أنت هلب كاستعماله وحوا هلب أري أو لوك توا أدك تاي مركا حب كان دا أكريسيد نهوش وكو فضلانيسا إن شاء الله waxaa halkaan ku shubayaa soya sauce hilibka waana carfisaa kalar yar oo fiican waa u yeelaysaa dhanaan yarna waa leedahay marka midda maaragtay low sodiumka soo gata markasto waxaan kaloo ku daray toon shiidan paprika waxa dhan waa ku qoran yihiin waa u jeedaan cusbo intaas markii aad ku dartid waxaa ku daraysaa pickle spices xawaajigan waa xawaaji burbur iyo waxyaabo kale badan oo la isku geeyay waa shiidaa markii aan shiida kadib saliid yar maaragtay baaquliga ku jirtay hadda u jeedeen oo ku qoran tahay waxa dhan intaas isku qasaysaa markaas kadibna lugta hilibka aheeda marinaysaa labadaas xabba toonta afkaan ka jaray waxaas cagaaran oo u jeedaan waa rosemary-ga hilibka aad u macaaneeyaa caraf fiicanna uu sameeyaa marka waxaad samaynaysaa waa marinaysaa wixii aad isku qastay saliidii iyo xawaajiyaadkii iyo wixii dhammaa hilibkii aad marinaysaa subxaan allah waxaan ku leeyahay farahaagaa cunaysaa hadhow mideeda kaleeto waxaa lagu malaynaa maanta dhinaa karinaysay foornadaa gelinaysaa aluminiumkaasaa kor iyo hoos uga duubaysaa waa isku dhammaataan ku leeyahay liin dhanaantaas marka waxaa aad muhiim u ah in maaragtay aad aluminium fiican ah hesho aad si fiican afka ugu duuduubto ama baaquli maaragtay isku dabool ahoo aad ku hiiriso hilibkaas maxaa yeelay biyo iyo waxba looma geynaayo 3 saacadood aad sugaysaa foornada 350 aad u geynaysaa Fahrenheit waaye idinkana meesha aad joogtaan markastaba dee ku xisaabtama meeshaas aad ku iloobaysaa waa gelisay markaas kadib waxaan sameynaynaa bariis aad u fudud dad badan waxay ii soo qoraan xabsa bariisada furfurkaa sida loo kariyo noo soo sheeg waa maaragtay waa naga baaba'aa waxyaabo noocaas oo kaleeta marka bariiskan wiilasha iskaabulada xataa waa sameyn karaan waxaa sameynaysaa bariiska koob iyo 2 koob wixii aad karsanaysid iyo 5 koob biyaha ka kormari marka biyaha ka kormarisa kadib markuu soo karkaro oo maaragtay uu jilco bariiska yacni uusan adkayn waxaa samaynaysaa sida baastadii u miire intaas waa isla garanna soo maaha marka intaas samayso aad bariiskii aa miirto ila biyo waa ka kormarisay markaa miirto waxaad samaynaysaa basal iyo maaragtay toon aan mashiin ku jarjartay haddii aad doontana gacanta ku jarjaro si yaryar aa u jarjartay aad isku shiilaysaa basasha iyo maaragtay basasha markaa karinaysid waa inay si fiican u kartaa basasha kalarkeeda uu isbedelaa markaas kadib maaragtay ay sharafteeda soo baxaysaa bariiskii waa ujeedaan waa miiranay biyahaasaan ka dhammaynayaa markaas kadibna waxaan sameynayaa bariiskaas wixii lagu qurxin lahaa oo basashii aan idiin sheegayo waa xabad weyn oo basala 3 qaado 4 qaado camal oo saliida basashaas markii ay karto wax ka macaan ma laha qofka wax karis inuu yaqaano waxaa lagu gartaa basasha haddii basashiyo ceyriina cuntadaada lagu dhex arko waxaa waaye cunto kariskaaga shakiyaa ku jiro marka basasha waa inay saas u kartaa waxa madmadoow aa ujeedaan waxaa waaye toonta xoogaa yar horey ka gubataa marka be careful bariiskii waa ujeedaan waa isku dhex qasayaa iyo toontii iyo basashii oo kartay waxaana ujeedaan waa sacfaraanka maasha allah dhinaca caafimaadkana aad ugu fiican yahay cuntadana wuxuu ka dhigayaa waxaan la maqaloo la arag caraf iyo macaan fiican uu sameeyaa maaragtay cuntooyinka iiraaniyiinta iyo carabta iyo maaragtay kama maqna markastaba hindida iyo sacfaraanka qaali ha ahaado laakiinse waxa waaye bariiskaaga maasha allah khatar u ka dhigayaa haddii aa awoodo heli karto ku darso maadaama maaragtay uu dhinac kastaba u fiican yahay haddii dhinaca caafimaadka iyo dhadhankaba marka wakaasa bariiskii waa ujeedaan marka waxaan sameynayaa bariiska aad u furfur u yahay wuuna karay marka waxaan sameynaynaa hadda waa daboolayaa waa isku walaaqay bariiskii waxaad moodaa maanta oo dhan inaa karinaysay foornadan hilibkii meeshuu ku jira u geeyey hilibka markaan waa iska diyaar bariiskii wax yar uu isku huurayaa markuu isku huuro kadibna waxaa lagu malaynaa caawiya berri inaa karinaysa alaabtaas waana wax yaroo macaan wax kaleetana kuma darin waa toon iyo basal bariiskaas waana furfur xabad ku dhegan ma lahan wuxuu isoo xasuusiyaa bariis maaragtay yamaniyiinta ay kariyaano maqaayadaha yamanta aan ka cuni jirnay
ويسوي حسوسية آد وفي عيان هلبكنا وكاسا قرح موجودان ما شاء الله وح آد وفضل عشاء كديجان كرتان سحورها كديجان كرتان يا وباهن سمبوس مع كستو ما ركتي la shiilay inkastoo aniga aan sambuus shiilin oo maaragtay aan foornada ku samaysano waa ujeedaan bariiskii xabad xabad kuma dhegana marka asxaabta iskaabulada ahoo maalin kasta bariis furfuro loogu booteeyo wakaasaa sirtaas qofna ha isaga sheegin mise waxaan ku dhahaa cajalada sheergare sidii ay jeceshahay laakiin waa ujeedaa bariiskaas isaga celi magaalada kasoo tuur walaalaha kaleetana insha allah la sheergareeya wakaasaa maasha allah soo maha waxaa halkaas ku jira oo cadna waxaa waaye oo basbaas iyo garoor malab yar iyo mint oo isku shiiday waa qaado garoor ah iyo maaragtay saddex dhowr xabo basbaas ah malab yar liin iyo cusbo iyo mint oo isku shiiday marka waxaas uu kaa qaboojinayaa isagana khayr iyo barako cajalada badanaa noo soo socda insha allah cabitaano badanaa noo soo socdo dadka maaragtay raba inay isdhuudhuubaan oo yacni soonka sidooda isku hayaan laftirkooda howlaa loo hayaa waxyaabo badan baa u diyaara marka idinkana dee dhinaciina igala shaqeeya oo cajalada sheer gareeya xabsi waa kuu xiisnaan kuma aragna ayaamahan wax badan ay soo qorteen khayr iyo barako ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu